السلام عليكم. maanta waxaan ka hadlayaa waxaan joognaa cali jirde waxaan u mahad celinayaa hodan iyo Ramadan Academy oo xaflad aad u qurux badan ka sameeyay caruurtii graduation kooda caruurtii ma sha Allah wax badan bay ka barteen labadayda caruur baa taga ma sha Allah waan dhahaynaa. Assalaamu calaykum. magacaygu waa Saynab Aadan Dugsiye waxaan ahay waalidka ka tirsan dugsiga Ramadan Academy. Ramadan Academy waxa weeyaan school yani si qurux badan loo manage gareeyay, si qurux badan loo diyaariyay maamulkiisa, nadaafadiisa, waxbarashada haday noqoto, barbaarinta ciyaalka haday noqoto aad buu u diyaarsan yahay. waxa jooga macallimiin wanaagsan oo u diyaarsan oo saaran ciyaar tayo leh, waxbarashadoodu fiican tahay. Actually in KJ go kale barbaarinta ciyaalka ilmaha waxa loo barbaarinayaa si high quality leh ayagoo lagu barbaarinayo waxbarasho qurux badan iyo waxbarasho ay kula jaan qaadayaan dunida inteeda kale. waxaan leeyahay waalid kasta oo na arka ama iskuulka Ramadan Academy arka kaalay soo booqo ciyaalkaaga u imo u arag place-ka quruxda badan leh, nadaafada badan, waxbarashada tayada leh, maamulka quruxda badan iyo macallimiinta joogta. Assalaamu calaykum. soo dhawaada iskuulka Ramadan Academy School waxaan hore noola joogay KG3 ila grade 3 way noo dhamaadeen sanadkan insha Allah nagastiga sanadkan kale waxaan noo bilaabmayaa grade 4 isqorista way socotaa way ku soo dhaweynaynaa gacmo furan insha Allah soo dhaweyn wanaagsan. My name is Teacher Carol. I'm the head teacher of Ramadan Academy. Ramadan School started as a home school and it has grown to be a big school whereby now it has 60 students. It's an amazing place where children enjoy, they play, they learn, and we develop holistic learners. It's one school that does not only major on academics, but also nurturing every learner's talents. Particularly, I would say that today was it's an amazing day whereby our learners were showcasing their talents, and we also had our first graduation day. We had an amazing day. Children were really showcasing their talents, and it was really wonderful when we saw our children growing and being holistic in all areas of learning. We appreciate the support that we have been given, and also we are hoping forward for better and better support. And also Ramadan is still growing. Next year it's going to we are moving grade 1, 2, 3 and 4. Where schools are going to be 2 campuses, Annex 1 and Annex 2, whereby the Annex 1 is for the kindergarten and Annex 2 is for the primary section. Come and join us. It's an amazing place. You can come and have a look. We are always there for you. We are parents, we are teachers, and we are all that you want your child to come across. Thank you so much.